أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ka salaamayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan dal iyo dibad. waxaan idinku salaanta muslimka qaaliga ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. meeshaad iga dhagaysanaysaan ama iga daawanaysaan waa Khadiija Aadam Official. kusoo dhawaada channelka, waa channelkiini gacmo furan iyo qalbi nadiif ah. saad subscribe saarteen ood ii soo dhaweyseen oo ku mahadsantiin. marka hore Ilaahay baa mahad iska leh iyo shukri, kadibna idinkaa idin mahad celinayaa saa subscribe-ka ii siiseen. maasha allah. intii dhiman haddii iigu dadaala faraha haddii ka socda insha allah. like iyo subscribe, dislike haddii waa doobal xiray, marka subscribe-ka liigu dadaala insha allah. like-ta meel dheer bayna gaarsiinaysaa, like badanna waa rabaa insha allah. hadduu ku soo gaaro videogan like badan, like-ta ugu dadaal iyo subscribe-ka, ma garateen. maanta waxaan ka hadli rabaa haddii ilaahay yiraaha, waxaan ka hadli rabaa maanta baryahan yani waxaa socday dood ka dhacday Universal TV ayaa qof kasta ka hadlaya, qof kasta waa ka hadlay midha anaa u dambeeya umalayaa. anigana ra'yigayga ka dhiibanayaa waxay ila gudboon. horta haddii runta laga hadla, gabar aan saddex rabin hadee waxa ayada hooyadeed ay barbin saasaa laga yaabaa, soo maaha. hooyada haddii aad wanaag la rabtid iyo yani meel sare inay gaarto waaba gaarsiisan tahay, waa inaad hooyada wiilkaaga xaajigaaga aada ogolaataa, waa ku qasban tahay. dee taas barimaba ahanba. wiilkan asagoo weyn oo maasha allah qurux badan oo labisan baa aan aragtay adig kaligaa ma arkin, dumarkoo dhanba aan aragnay. naag baa lasoo rafaaday, markii hore caloosha ku qaaday, markii dambe dhashay, ilaahay u fududeeyey, soo korisay. yani asoon si loo jiiftay, soo loo fariistay, si wax kasta aqoonin baa ilaahay baa baraye, hooyadii baa u noqotay hadee soo hagtay. ma fahanteen. marka wiilkii saas oogu soo tiir i tacabeelay yaa oo hooyo subax kasta u kala haysay, haddii aadaan dhaqaalo fiican la haysanin, haddii ayada u shaqaynaysay guriga iyo binaan iyo gudaba ka shaqaynaysay, waa hooyada. hooyo la-aanteeda abaar waaye. hooye qofaan haysanin dhib waaye. yani rafaada ku kora qofkaan hooyo soo korinin. haddii dad wanaagsan waxaa jira la soo koriyo, dad kale soo korseen waa jiraan, laakiin ma badna. maasha allah. marka waxaan leeyahay, inkastoon gabadha dhahday hooyo saddexdayda ma rabo oo gurigayga ma imaan karta, oo aan dee aad yani aan usii yani inaan usii dheeraada ma rabo. dadka bad baa hortay ka hadlay. marka hadday kolley i maqasho waan u aqli celin lahaa, waxaan dhihi lahaa gabaray, habaryarey, eedooy, saddex waa hooyo. adigana haddii ilaahay awlaad ku siiyo saddex baad noqon doontaa. haddaad gabdho dhashay iyo haddaad wiil dhashidba, laba jeeraba saddex waad noqone. in lagu dhaqaaleeyo oo lagu soo dhaweysto oo lagu xanaaneeyo oo meel wanaagsan yani lagu habeeyo waa rabtaa, soo maa. laakiin haddaad saddex diidid adna hadha waa lagu diidi, soo maa. ninbaa wuxuu yidhaa lahay, yani aabiis buu waxaa la dhahay mar hore aheedaa la dhahay, marka oo aabihiis oo waayeel ah uu yani oo indhoolo ah uu la socdaa la dhahay. markii baadiyin waa la joogay, marka aabihii wuxuu ugu tagaa la dhahay geed hoostiisa. waayeelna wuu noqday, indhoolona wuu ahaa. geed hoostiisa ugu tagay. kii ugu tagayna markii asigana weynaaday oo sidii aabiis oo kale u noqday, wiilkiisa marka wadi jiraa la dhahay oo yani hoggaan u ahaa. asagana waxaa la dhahay wuxuu keenay geedkii
aabihiis awowgiis loogu tagay. markaasuu dhahay aabbo inta sii fadhiiso waan kuu soo noqonay. markaasaa wuxuu yidhi geedka geed hebel ma yahay, meel hebel ma ku yaallaa, yaa yani meel ay isla yaqaanaan waaye oo ay degi jireen. haa aabuu ku yaallaa, ayaa orod iska tago dha iima soo noqonay sidii meeshan aniga aabahay ugu tagi waaye, yaa meesha aniga aabahay ugu tagi waaye iima soo laabanay sidii orod iska tago dhahay. ninkii sidii baa loogu tagay. haddee ninkii iima soo laabanay asagana inuu soo noqdo maba rabinba. marka qofkii waalid xumeeya asna waa la xumeynaa, yaa marka gabadha hadda saas dhahday aqli yar hadday u geyso kolley xilligan way qoomameynaysaayo meel kastaa laga soo galay. soomaali meel kasta dee wax yar ay kugu maqlaan dee meel kastaa lagu geynaa soo maha. yani meel kastaa yani adduun weynaha dhan waa laga ogyahay soo maha. social mediaha absaas noqdayba, yaa marka qofkii waa la diido mase xumeeya sidii ninkaas oo kale hataa ku dhacayso. meel baa yani meeshuu asagaa waalidkiis ugu tagay oo adigana waa lagaaga tegaa. marka wiil qurux badan oo hooyo soo korsatay oo kaale iska ari ani hadda hooyadii in saas la yeela ma jeceli oo la naaco saddex waaye. ama saddexa in la naaco ma jeceli. ana saddex baa la iyahay haddee waalidkayga waa saddexda. may fahanteen walaalayaalo. marka saddex wax la naaci kara ma ahan. saddex waa hooyo waaye. haddee ayadaba wiilkan kuu dhali lahayn oon kuusoo barbaarin lahayn xageed ka heli lahayd waaye. markaad tiri aniga hooyaday guriga waa imaanaysaa fasax kama qaadanaysa, laakiin xaajigayga hooyadiis waa in fasax la ii weydiiyaa. ninka waxaa waa ilaahay baa ka dhigay hadee mas-uulnimada hadee yani waxa dhadheele ma ahan. siduu fasax kuu weydiisanaa qasab ma aha in fasax lagu weydiista gabarey mise gabdhoo dhanba aan laha hadlaya dumaroo dhanba. dad badana arkay oo saddex neceb, laakiin haddaad nacdida beri adna waa lagu nacaago, yaa ani saddexday waa hooyadayna saddex waaye, anigana saddex ba ahay. in la inaca beri ma rabo. marka saddeyaashii aan la nicin hooyo waaye saddexda. saddex waa la iska leeyahay ma ahane. saddex waa yani magaca afka iska mari laakiin waa un hooyo. hooyana waa qaali, yaa marka haliska daaya hooyo naceebka. saddex naceebka haliska dhaafo. hadday xun tahay hataa hooyo waa in loo dulqaato waayo oo loo samra, yaa wax kastaad kugu samayso haye hooyo. laakiin gabadhaan weli guursanin oo hadda saddex neceb hadday saddexdii ilaahay ku simo ay hesha, yaa marka saas aniga ilama fiicno. saddexda in loo dulqaato hooyo waaye. ninkaaga hooyadiis xagee loo tuuraa? ninkaa quruxda badan ee kuu dhashay adiga kuu soo shaqaynaayo yani aad ku tiirsan tahay waa inaad madax saaratid. waxaa la dhahay qofkii aad jeceshahay qofkiisa waa la jeclaadaa. marka hooyo waa qaali, hooyo lagama maarma, waa hooyo maasha allah. marka hooyooyinka yaan la nicin soomaaliya gabdhow. adiga haddii aad hooyadaa la neceb yani haddaa adiga hooyo kale aad nacdid adiga hooyadaa lama jeclaanayo. laakiin waxaad jeceshay inaad hooyadaa la jeclaado, hooyada kale jeclaaw. laakiin aniga hooyadaa ma rabi anigan hooyadii rab taas ma noqonayso. marka aniga ra'yigayga taas waaye. waxaan leeyahay haddee
cid kastoo haddii maanta oo maskaxda ka shaqaysiisa yaa haddii saasay u fikri lahay soo maaha. marka gabadhaas waxaa laga yaabaa da-yarnimo inay goyse. da-yar waxaa waaye marka aqli waa doqone dib buu kaa galaa waaye. marka gabar ay kasoo dhaqo waxaa dhahdaa qalad baan sameeyey waan ku qaldanahay dhe inkastoo laguu celceliyo masaas baad doonaysaa, masaas baa rabtaa hooyadaa ninkii hooyadaa xaajigaaga hooyadiis ma rabti inay ku imaato ay kula joogto maya. saas ma fiicna. haddaad bini-aadanku waa qaldamaaya, haddaad qaladkaaga aada garatina insha allah haddii waad kasoo noqon doontaa. cid kasta way ka hadashay arrintaas, sheekh hatuu ka hadlay, in aan ka hadlin malaha. marka asxaabay intaasaan ka hadli rabay, ra'yigaygaan ka dhiiban rabay, marka waana ka dhiibtay. waxaa idin rajeynayaa kheyr iyo kheyraad. haddii video hadduu idin soo gaaro subscribe iyo like iyo share iyo dhaha. rag iyo dumar baan ka hadlaya, waxaan leeyahay subscribe-ka hal ii saaro, like hal ii dhaho. yaa anaga soomaalin baa waxaa usoo duubnaaya in nala daawada. haddii cid kale nama daawanaysa, intii afkeena taqaano maana daawanayso ma aha. dadka afkeyga garanaya af soomaaliga aan ku hadlaya yaqaana, hadee waxaan leeyahay walaalayaalow subscribe-ka ii saaro oo like ii dhaha. hadda dislike waa la diiday. faraha nuuxiya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.